qaramada midoobay oo walaac ka muujisay dilalka Soomaalida loogu geysto dalka Koonfur Afrika. Wariyada Maxamed Ibrahim Salaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay dilkii foosho xumaa ee loo geystay laba muwaadin Soomaaliyeed dilkaas oo ka dhacay deegaanka Cleanbolk oo u dhow magaalada Cramston ee dalka Koonfur Afrika. meydka ayaa waxaa helay mid ka mid ah dadka deegaanka ku dhex jiray goob dukaan ah oo ahayd halkii lagu dhex dilay labada muwaadin Soomaaliyeed. afhayeenka hay-adda UNHCR ee Koonfur Afrika Laura Bodon ayaa yiri ragga Soomaaliyeed ee la dilay waxaa la xaqiijiyay inay qaxooti ahaayeen. marka waxay walaac ku hayaan UNHCR waxaan ka walaacsannahay in qaxootiga iyo magangalyadoonka la bartilmaameedsaday gaar ahaan bilihii u dambeeyay iyadoo loo marayo weerar rabshado wato oo ay sababeen isir nacaybka ajaanibta. UNHCR ayaa sheegtay inay si dhow ula socon doonaan baaritaanada ay wadaan booliiska iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo xiro dadkii dalka Koonfur Afrika dilalka iyo weliba dhaca u geystay dadka ajaanibta gaar ahaan Soomaalida. dalka Koonfur Afrika oo ay ku sugan yihiin kumanaan ganacsato Soomaaliyeed ayaa waxa ay mar walba la kulmaan dil, dhaawac iyo weliba boob hantidooda loo geysto.